xaflad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu qatimayay raatibooyin la soo waday muddo sanad ah laguna baranayo culumta diiniga qaybaheeda kala duwan ayaa xalay lagu qabtay masjidka jaamacad Turaqay ee magaalada Ruusmareeb. Culamaa u diin iyo mashaayikh badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha xafladda ayaa halkaasi ku soo bandhigay qasiidooyin dikri iyo nabi amaan ah. bana bi yusuf al-imami يا ربنا بالعالم الجوادي بيوسف الإمام يا ربنا بالعالم الجوادي Sheekh Saciid Maadix oo ka mid ahaa culimada ka qayb galay xafladan ayaa khudbad kooban ka jeediyay goobta waxa uuna sheegay in bilowga Ramadaan kasta la sameeyo raatibooyinkan oo kale. xafladan waxay ku saabsan tahay la khatimayo raatibooyinkii la soo waday sanadka oo dhan quraamadii la soo akhrinayay mawliidkii la soo akhriyay khayraadkii iyo tawassulaadkii awliyada raatibooyinkii kulli wixii la soo akhrinayo sanadka oo dhan ayaa caadadu waxay tahay markii ramadaanka uu soo dhawaado in la khatimo khatimka macnihiisu ma aha wixii la joojinaya ma ahan ee waa lagu ducaystaa weeye رمضان markuu soo galo khayrka waa la sii laalaabaa oo quraanka la akhrinayo la joojin maayo salliga nabiga la joojin maayo kaleey salaatu wasalaam tawassulaadka awliyada ma la joojinayo laakiin sanadka wixii la soo waday ramadaanki hore ramadaankan inta u dhaxaysa ayaa lagu ducaysanaya hadii Ilaahay yiraahdo oo dalka Soomaaliya guud ahaan islaamka gaar ahaan ahlu sunnati wal jamaa ayaa loogu duceeyaa marka xafladda hawlahaas ay ku saabsan tahay. ugu dambeyn gabagabada munaasabada ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Cali Nuur Cilmi Sheekh Cali Yare ahna sheekh kutubada ka akhriya masjidka jaamacad Turaqay ee magaalada Ruusmareeb. waxa uu sheegay in qatimkan uusan ahayn mid lagu joojinayo faafinta khayraadka balse uu ku egyahay inta lagu guda jiro bisha Ramadaan ee bilanaysa. khatimka macnihiisu waxa weeye kulankii la kulmayay yaa laga yaabaa inay dadku u soo xog heli waayaan maadaama bishaas muddada dheer loo diyaar garoobay ay soo galayso oo ay dadku kala mashquulayaan markay soo imaanshihii weeye waxa laga cudur daaranayaa mooyaane joojin ma ahanayaan sidaas loo fahmin in la joojinayo waa wax muhiim ah wax la isfaro waxa ugu khayr badan ilaahay taqwadaas aan u diyaar garowno iyadaana anfacaysa qofku waxa uu khayrka ku gaaro ilaahay agtiisa oo maaragta karaamada ku yeesho oo ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa ku siiyo taqwada ilaahay weey inna akramakum indallahi atqaakum naska quraanka sidaas u cadeynaya kan idinku khayrka badan karaamadu waa khayr ilaahay agtiisa waa kan idinku taqwada badan marka qof walbo karaamadaas iyo khayrkaagaas ku dadaal inaan lagaaga dheerayn meeshaas waxay u baahan tahay in tartan laga galo وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إلهي سبحانه وتعالى آياتها قرآنك يوحو كتل مامي dadka muqarrabiinta Ilaahay naxariistiisa lagu soo dhaweynayo wanaaga ay leeyihiin markaasuu Ilaahay ku khatimay subhanahu wa ta'ala wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun inta tartamaysa ha ku tartanto khayrkaas tartankaas weeye waxaan isku baraarujinaynaa. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud warbaahinta goobjoog magaalada Ruusmareeb.